أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب العالمين الحمد لله الذي شرع لنا دينا قويما وهدانا إليه صراطا مستقيما ووعد من لسم بأن له صراطا جزيلا وثوابا عظيما وتواعد من حاد بأن له عذابا أليما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وكفى بالله ناصرا ومعينا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله ربي والسلام عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى فإن تقوى الله جل وعلا جميع الوصايا وأساس السعادة وهي وصية الله الأولين والآخرين من خلقه كما قال جل وعلا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وقال جل وعلا أيضا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال جل وعلا أيضا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال عز وجل ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون وقال جل وعلا أيضا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير أما بعد عباد الله إلهي سبحانه وتعالى وحوق الدري وشانقويي أدونك عندك وارسين يسنشرين ولو بلا آذنك أما ابن آدمك إيجعليهين إرى أدونك كسي واران أو مال منورادان أو مال مجوغان waxaynu maanta khudbadana dul istaagaynaa insha Allah dhacdadii ka dhacday New Zealand labadii masaajid ee la taageeray ee muslimiintu ku tukanayeen saynu maanta u tukanayna salaad jimce u taaganahay ayaa la soo weeraray iyagoo boos iyo makaan aamina ku jira iyaga waxba garabsan waxay geysteen aysan jirin ayaa la soo weeraray dhacdada noocaas maxaan ka baran karnaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu quraanka inoo sheegay in
فرعون oo ilaahnimo sheegtay uu damcay inuu dilo nabi Muuse alayhi salaatu wassalaam ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanku inoogu sheegay ataqtulu rajulan an yaquula rabbi allah ma waxaad dilaysaa qof qiraya rabbigii inuu alle keliya yahay fircawn wuxuu rabay qoomkiisana ku duleystay cid kastoo markaa la joogtayna inay isaga rabbinimo u qirto ilaahayna subxaanahu wa tacaala qur-aanku inoogu sheegay muslimiinta dhibaatooyin baa soo maraya walaalayaal ilaahayna subxaanahu wa tacaala dhibaatooyinkaas qur-aankiisa ayuu ku sheegay maraaxisha looga gudbayo iyo xaaladaha looga gudbayo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu addoonka u qadaray wax allaala wixii masiibo ku dhacda inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ula laabto casharna uu ka qaato ilaahayna wuxuu leeyahay kuwa masiibadu ku dhacayso qaaluu inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun ilaahooda hawla laabtaan yaysan wax kale ku qoolin haddaan masaajidka aanan tegi lahayn haddaanan meeshaa tegi lahayn haddaanan saa samayn lahayn waxaas iguma dhaceen inaad lowda badiso shaydaan ayay kuu horseedaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nagu sheegay qur-aanka naf walba inay geeriyoonayso waqti ay dhimanayso kullu nafsin daa'iqatu lmowt naf kasta geerida way dhadhamin wainamaa tuwaffawna ujuurakum yowma alqiyaama qof walbana waxaa lagu abaalmarin wuxuu soo shaqaystay faman suxsixa cani innaar qofkii naarta laga badbaadiyo wa udkhila aljanna jannada la geliyo faqad faasa qofkaasi waa liibaanay wama alxayaatu addunyaa ilaa mataacu lguruur nolosha adduunyana waa maalmo yar oo dhalanteed ah weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala aayad kale wuxuu ku leeyahay kullu man calayhaa faan wax adduunka saaran oo dhan way baabi'i ama bini aadan ha ahaado ama guryo laysdul saara ha ahaado ama gaadiidka lagu socdo ha ahaado waxa adduunka saaran oo dhan waa baabi'i wayabqaa wajhu rabbika rabbigaa unbaa baaqi noqon ilaahay subxaanahu wa tacaala qof kasta wuxuu u qadaray oo u jaangooyey waqtiga uu dhimanayo ilaahay subxaanahu wa tacaala qof walba u jaangooyey ilaahay wuxuu yidhi walikulli ummatin ajal ummad kasta waxay leedahay waqti la jaangooyey faidaa jaa ajaluhum laa yastaakhiruuna saacatan walaa yastaqdimuun haddii waqtigii loogu talagalay inuu adduunka ka tago ay timaado saacad loogu dari maayo ilaahay aayad kale subxaanahu wa tacaala wuxuu ku leeyahay wamaa tadri nafsun biayi ardin tamuut nafna ma garanayso meeshay ku geeriyoonayso nafna meeshay ku geeriyoonayso ma garaan fakus baad ku geeriyoon ma afrikaad ku geeriyoon ma eshiyaad ku geeriyoon ma garanaysid ilaahun baa mar hore qadaray adugu waad socotaa ma bes allaad u dhiman mise cid baas lagugu sababi ilaahay subxaanahu wa tacaala u qoranta meesha ugu dambaysa adduunka new zealand in muslimiin lagu xasuuqo waa wax ilaahay subxaanahu wa tacaala mar hore uu qoray waa shuhadaa'ullah ilaahay jidkiisaa lagu dilay iyagoo beydkii alle subxaanahu wa tacaala ku jira ayaa lagu dilay waa nasiibka ugu wanaagsan weeyaan qof kasta mar buu dhiman lahaa laakiin nasiibka ugu wanaagsan waxa weeyaan adoo ilaahay jidkiisa ku sugan inaad dhimato ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay geerida isagoo inooga warramaya qofna geerida kama carari karo maaloo gaadhi saaran baad dhimanaysaa maaloo soconayaad dhimanaysaa geerida marna kama carari kartid qul ina almowta aladiina tafiruuna minh fainahu mulaaqiikum geerida aad ka cararaysaan waa mid idinla kulmaysa yani way kula kulmaysaa hortaaday socotaa waxna waxa weeyaan waa wax ku eryanaya waxna waxa weeyaan wax markaa kula siman laakiin geeridu iyadaa kaasii horeysaba haddaad halkan ka dhaqaaqdo oo halkaa ku geeriyoonayso geerida waa kugu sugaysa qul ina almowta aladiina tafiruuna minhu fainahu mulaaqiikum geeridaas waa idinla kulmaysaa
meel kasta joogtaan ilaahay subxaanahu wa tacaala nebi maxamed oo koonkan u soo diray inaguna ay nahay ummatu maxamed salawaatullaahi rabbi wasalaamu calayh ayaa alle subxaanahu wa tacaala uu sheegay inuu dhimanayo cid ka horeysana aan la dayn cid ka dambaysana aan la dayn doonin nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi ana sayidu walada aadam walaa fakra anigu waxaan ahay inta ilaahay subxaanahu wa tacaala abuuray ee reer bani aadam sayidkoodii iyo madaxoodii baan ahay isagoo dembigiisii hore iyo dembigiisii la dhaafay ayuu alle subxaanahu wa tacaala u sheegay inuu geerida dadaminayo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u soo dejiyey qur'aan tusaya calaamad u ah in geeridiisii soo dhowaatay idaa jaa'a nasrullahi waalfatx wara'ayta annaasa yadkhuluuna fii diini illahi afwaajan fasabbix bixamdi rabbika wastakfir nebi maxamed waxaa la dooransiiyey ma adduunkaad joogaysaa mise aakhiraad aadaysaa oo rabbigaa la kulankiisa ayaad jeceshahay ila arafiiqi laclaa ayuu ku qowlay nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam wamaa jacalnaa libasharin min qablika alkhuld kamaanan yeelin adduunkan inuu ku waaro cidaadi kaa horraysa afa imidta fahum lkhaaliduun haddii adiga lagu oofsado nebi maxamed oo aad dhimato cid ku waaraysa ma jirto kullu nafsin daa'iqatu lmowt naf kastana geerida way dhadhamin wanabluwakum bishari waalkhayr fitnatan wailayna turjacuun ilaahay subxaana wa tacaala saas ayuu qur-aankiisa ku caddeeyey ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay isagoo geerida naga warramaya inaynu wax hormarsano aakhiradeena wax u hormarsano waa la socdaa laakiin aakhiradaada xasanaadkaaga akoonkaaga aakhiro saad akoonkaaga adduunyada u kobcinayso akoonkaaga aakhiro inaad u kobcisaa loo baahan yahay maxaad ku kobcin kartaa waxaad ku kobcin kartaa wixii sayi-aada wixii xasanaada ee wanaag ah oo dhan baad ku kobcin kartaa ilaahay wuxuu leeyahay waanfiquu mima rasaqnaakum min qabli an yaatiya axadakum almowt fayaquula rabbi lowlaa akhartanii ilaa ajalin qariib faasadaqa waakun min alsaalixiin walan yuakhir allahu nafsan ida jaa ajaluha wallahu khabiirun bima tacmaluun aquulu ma samictum waastaqfiru allaha lii walakum walisaa'iri lmuslimiina min kulli demb faastaqfiruu yagfir lakum innahu alghafuur rahim الحمد لله الذي شرع لنا دينا قويما وهدانا إليه صراطا مستقيما ووعد من لسم بأن له صراطا جثيلا وثوابا عظيما وتواعد من حاد بأن له عذابا أليما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وكفى بالله ناصرا ومعينا أما بعد ولا ليال saynu sheegnayba geeridu waa lama huraan waxayna ka mid tahay casharada ugu waaweyn aynu ka qaadanayno ama boyntiga ugu weyn arrintii new zealand ka dhacday labadii masaajid ee konton muslimiina in ka badan lagu waxyeeleeyey oo ku dhinteen intaa in lamidaana dhaawac uu ka soo gaadhay casharka ugu weyn aan ka qaadanayna waxaa weeye in la geeriyoonayo qofna uusan ogeyn meeshuu ku geeriyoonayo iyo waqtigu geeriyoonayo iyo meeshuu ammaanka ku yahay iyo meeshuusan ammaanka ku ahayn qofna inuusan ogeyn ina allaha cindahu cilmu saaca ilaahay subxaanahu wa tacaala qof walba saacadda aakhira isagaa haya qof walbana waqtigiisa isagaa haya isagaana caalimulgeyb ah oo wax walba og muslimiintu arrintaa waxay ka baran karaan walaalayaal in oo faa'iido ugu jirto inay ogaadaan diinta dhabta ah inay tahay diinta islaamka diinta dhabtaa inay tahay diinta islaamka khaasatan waddamada muslimiintu ku yar yihiin ee qarbiga in muslimiintu diintooda ay sii xajistaan oo diintooda ku adkaadaan in dumarkooda iyo gabdhahooda ay amraan inay xijaabkooda iyo asturaadooda ay adkaystaan in salaada loo soo degdego oo salaada waqtigeeda la ilaaliyo in ilaahay subxaanahu wa tacaala u dhowaanshihiisa iyo caabuditaanka isaga la caabudayo loo sii dhowaado ilaahay subxaanahu wa tacaala in geerida la xasuusto oo majaalka iyo meelaha layskugu imaanayo iyo fadhiyada layskugu imaanayo geerida lagu xasuusto
إلهي سبحانه وتعالى مساجدي يميله وجعله يقولك كدورته إن لا صو أرضه أو إلهي سبحانه وتعالى دينتي سلو صرت سلو ولا لا يلأرنتا وحن كبران كرنا إن الأديار قرونا أو صحيح آخر أين قارنوا إن يسن أولادنا يمال كانوا يسين كذين أنكم مشغولين إلهي سبحانه وتعالى وحليه يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله وردتك إيمانك لغاية هلا أولادنا يمال كانوا يسن إلي كذين يسن إلي مشغولين إلهي سبحانه وتعالى ذكر يسي حسيتان كيس إلهي سبحانه وتعالى توبتي سئلو سودك دقو وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون إلو دقدقو إلهي سبحانه وتعالى توبتي سئلو دقدقو إلهي سبحانه وتعالى إنو مالين نباليه هاي الله إصلاح حساب تمي دونه إن لغو حساب تمو واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون مالين إلهي سبحانه وتعالى الله لابن دونه نف والبنا وحي شقيستي لو وفين دونه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لقد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون نفول بها هفير سطو وهفير سو أكون كذا آخر محيك شطي محاوهر مرسن إني فيرس نفول بها واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون تقول إلهي سبحانه وتعالى إن دوح كستقول هذا إلهي سبحانه وتعالى الله تكعب سطو وحي كوهر سيدة inaad ilaahay subxaanahu watacaala jeclaato jannadiisa jeclaato aakhiradiisa u shaqaysato bay ku horseedaysaa taasay ku horseedaysaa walaalayaal meeshaan ku dhimanayno saynu sheegnayba iyo waqtigeenu dhimanayno cid og ilaahay unbaa og markay naftu kalaxmaha soo gaadho awlaadaada iyo xaaskaaga cid ku celin karta ma jirto nafta kugu celin karta falowlaa idaa balaqat alxulquum wa antum xiinaidin tanduruun ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فلولا إذا بلغت الحلقوم نفط مكي كالحماس وقال وأنتم حينئذ تنظرون حاسكاقي يا أولاد يددك كتشعلا أبناء التشعلا يكدل فليان ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون إلهنا سبحانه وتعالى عد أكودو إياهي يريدوا أي تاوحا كودو كوما علين كران نفط ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين هذا هو شيء يسا نفتكوا عليه هذا تعيشهين وتربطان أدونك كسي وارا نفتكوا عليه كم علي كرا عدكوا علين كرتا نفتا مجرطو محال لو بهاي أدونك الصحي صدح مبات كقارن كرتا نبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات الإنسان انقضى عمله أدو قفكوا أنت عملك سوا بابي إلا من ثلاث صدح مويا إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أدونك صدح مبات كالتك وقلتك كل قلي حوالي بدن يا دار بدن يا باور بدن يا دمر بدن أو قروح بدن قلتك كل قلي معيان لكن ما كل قلي صدح مبات كل قلي صدقة جارية مساجد يا عرشة مسلمين تين أبو دشت أو كغيب قاوة مساجد الله ليسيو يا عرشة الله ليسيو iyo agoonta wax la tarayo iyo amal markaad dhimato ku sii shaqeynaya amal waa amal markaad samayso hadda aad helayso abaalkiis amal la waxa weeye waa amal ku sii shaqeyn doona geeridaada ka bacdi kaas bal wax ku leedahay kaas baa ku anfici maalinta ilaahay subhanahu wa ta'ala hortaagantahay laysa baynahu wa bayna allahi turjumaan adiga ilaahay subhanahu wa ta'ala cid in kala qarqaadayso in kala turjumaysanaysan jirin عملك كان فعيا وحويا وعملك أظهر مرستي ويا والصدقة جارية ويا أو ولد صالح المصالح أو كود عيني المصالح وحويا وإلما الحلال كبر بارسي وإلما الدين تكبر بارسي وإلما أرقد ما تيسقى إسلاما أو إلهي سنة كحرا دينتي سنة يقانا والد ماذا يبارن والدك إنه أصلا فلا أبارس فلا يقانا ولد صالح وياه إن بدن وحن المها ود الله الدنك هنا وشقيان وحبرته أو ما ركتي أكون كيسا وحصاد على ضحك يارته إنه آخره كوسا شقي أياك أو ليس ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به أم علمك أنفعه
inaad ka dhimato kitaabaad qortay muslimiintaad uga dhimatay waxaad qortay wax muslimiinta anfacaya ayaad qortay oo sadaqa jaariya dad muslimiinaad wax bartay oo dad kale wax sii baraya inta waxbarashadaas ama cilmigaas sii socdo waa sadaqa jaariya goob wax lagu barto ayaad wax ka geysatay waa sadaqa jaariya ku soconaysa nabiguna sallallahu alayhi wasallam wuxuu balliqu anni walaw aaya war aayana haata ummadda wax iga gaarsiiyo waxaad barato waxa waajib kugu ah inaad ummadda barto inaad ummadda gaarsiiso saddexda baa godka kula gali saddexda baa ku raaci saddexdaas in laga hadda la nool yahay inta naftu kugu simantahay inaad ka gacan qabsato loo baahan yahay walaalayaal inaad ka gacan qabsato ayaa loo baahan yahay waxaan ugu baaqaynaa muslimiinta iyo masaajidda qarbiga ku yaala iyo community-ga jooga qarbiga in diintooda ay xajistaan inay meel uga soo wada jeestaan islaam nacaybka iyo islaamofobiyada islaamofobiyadu walaalayaal ma aha wax hadda abuurmay waa wax fircoon iyo inta la halmaantay ay ka soo shaqeynayeen waa wax la barbaarinayo oo la kabcinayo kabacdina keenaysa in dad la isku qarxiyo ama dad la laayo aan waxba galabsan waa islaam nacayb waddankan aan joogno inaad yuhuudda ka sheegto wax waxa weeyaan waa wax lagugula xisaabtamaya dad wax ka sheegto laakiin waddankan aan joogno wuxuu leeyahay qof walba xaq buu leeyahay dimuqraadi baan nahay waxaa markaa habboon in islaamka cidda wax ka sheegta lala xisaabtamo in ciddii qof midabta koorta laga shaqeeyo oo lala xisaabtamo dadka madowga ha ahaadaan dadka carabta ha ahaadaan dadka soomaalida ha ahaadaan dadka muslimiinta ha ahaadaan sida diinta yuhuudda ama diinta christianity-ga loo siiyey freedom in xorriyadna la siiyo diinta islaamka walaashan ilhaan waxay u istaagtay in ay u dagaalanto xuquuqda muslimiinta waxay ku soo dartay markay yuhuudda point kaga hadashay in islaamofobia ciddii muslimiinta wax ka sheegta in lagula xisaabtamayo arrintaasina waa arrinta maraykanku uu ku jiri karo maadaama qowmiyado badan ay wada joogaan jiritaankiisuna ay ku jirto innaga waxaa laynaga rabaa inaynu diinteenna adkaysanno fafiruu ila allah inii lakum minhu nadiiru mubiin ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo ballan qaaday markaan diintiisa haysanno aakhiradiisa xasuusanno ilaahay janno inuga abaalmarinayo ina aladiina qaaluu rabbuna allahu suma istaqaamuu tatanazzalu calayhim almalaa'ikatu anlaa takhaafuu walaa taxsanuu kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala ku qowlaya kelmadiisa anlaa takhaafuu walaa taxsanuu ha murugoonin ha cabsanin waabshiruu biljannati alatii kuntum tuucaduun ku bishaaraysta jannadii laynagu bishaareeyey taas weeye abaalmarkeenu intaynu sugayna waa taas allahuma salli calaa muxamed wacalaa aali muxamed كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن خلفاء الراشدين المهديين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ورضى الله عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين اللهم انصر من نصرك دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم آت نفوسنا تقواها زكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا ذنوبنا كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلنه اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم وأقيم الصلاة إن الصلاة كانت تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم. الله أكبر الله